بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتي وعنو وناكسن داوديال waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka muuqaalka ciyaaraha waxaan kala aad kaga barteen inaad ka daawataan Rajis Sports TV waa maalinimo axada taariikhdan waxay ku aasaysan tahay 9ka bisha January sanada 2022 qodobada barnaamijka aad ku daawan doontaan waxaa kamid noqonaya naadiga Catalonia ee Barcelona oo badalka Ousmane Dembele ka ishaarteen horyaalka dalka England ee Premier League qodobada soo kale barnaamijka muuqaalka ciyaaraha aad ku daawan doontaan waxaa kamid noqonaya tababaraha la siyaasite Bernard Rodgers oo shaaca ka qaaday inta daaqada kala wareegay ciyaartoyda bisha January lagu guda jiro xidig qadka dhexe la siyaasite oo ku soo biiri doono qodobada soo kale barnaamijka muuqaalka ciyaaraha saaxiib yaal aad ku daawan doontaan waxaa kamid noqonaya Daniel Alves oo kulankiisii ugu horeeyay caawinaada sameeyay Barcelona kulankii taakada ay kala kulmeen Granada qodobada soo kale barnaamijka muuqaalka ciyaaraha saaxiib yaal aad ku daawan doontaan waxaa kamid noqonaya ninka reer Faransa Karim Benzema iyo Alexis Junior oo Real Madrid guul dahabi ku hogaamiyay kulankii Valencia ee ku xasuuqeen geeda Santiago ee caasimadda Spain ee Madrid horyaalka dalka Talyaaniga ee Calcio oo halis ugu jira gabi ahaan in la joojiyo kadib virus corona oo dalkaasi si weyn ugu sii faafaya qodobada soo kale barnaamijka muuqaalka ciyaaraha saaxiib yaal aad ku daawan doontaan waxaa kamid noqonaya ciyaaryahanka reer Argentina Lionel Messi oo PSG ugu hanjabay inuu ka tagayo Kylian Mbappe oo boorsooyinkiisa baag differences ka xirxiranayo halkuu ku sii jeeda Faransiiska garabka ka ciyaara ee Kylian Mbappe wakiilka caanka ee Jorge Mendes oo gaaray England si oo wada xaajood ula yeeshay ciyaaryahanka wakiilka u yahay Cristiano Ronaldo oo aan ku faraxsanayn joogitaanka geeda masraxa riyada ee Old Trafford oo Paul Pogba oo markale dhaawac uu soo gaaray garoomadana waqti kale ka sii maqnaanaya ayaa qodobada barnaamijka muuqaalka ciyaaraha aad ku daawan doontaan qayb ka noqonaya Arsenal oo xidiga iyo lacag iskugu dareeya Fiorentina si ay weeriyaan ka tirsan Viola ee u soo qaataan ayaa qodobada barnaamijka aad ku daawan doontaan saaxiib yaal ka mid noqonaya Lyon ciyaaryahankooda qadka dhexninka reer Brazil ee Bruno oo si weyn loola xiriirinaya Arsenal iyo tababar Mikel Arteta uu doonay xidig qadka dhexe inuu ku soo biiriyo Arsenal inta lagu guda jiro daaqada kala wareegay ciyaartoyda Arteta oo doonaya inuu buuxiyo booska ee baneeyeen Thomas Partey oo waajibaadka xulka qarankiisa Ghana aaday iyo Mohamed Elneny oo Egypt kaga qayb galaya koobka qaramada Afrika qodobada soo kale barnaamijka muuqaalka ciyaaraha aad ku daawan doontaan waxaa kamid noqonaya ciyaaryahanka PSG ka tirsan ee Angel Di Maria waxa uu ka hadlay xaaladda Lionel Messi ee back differences haysatay ciyaaryahanka tani markii jihada Barcelona oo kaga soo dhaqaaqay PSG nolosha horyaalka dalka Faransiiska ee Ligue 1 oo ku dhibaatoonaya Lionel Messi taa oo ciyaaryahanka ku qasbaysiin oo ka dhaqaaqo back differences kulamadii laga ciyaaray tartanka FA Cup-ka Chelsea oo wareegga afraad ee tartanka iska xaadiriyeen ayaa qodobada barnaamijka muuqaalka ciyaaraha aad ku daawan doontaan kamid noqonaya horyaalka dalka Spain kulamadii la ciyaaray kulamada caawa jira La Liga ayaa qodobada barnaamijka muuqaalka ciyaaraha saaxiib yaal aad kaga bogan doontaan qayb ka noqonaya koobka qaramada African Cup of Nations sanada 2022 maanta ayaa daa laga rogaya martigeliyaasha Cameroon Burkina Faso kulanka furitaanka la ciyaarayo Ethiopia iyo jasiiradda yar ee Cape Verde ayaa kamid ah kulamada maanta tartanka qaramada qaaradda Afrika ee African Cup of Nations idoo xidigaha qaaradda Afrika ugu caansan ee ka ciyaara horyaalka Premier League ee tartankani ay u ciyaarayaan xulalkooda tartanka koobka qaramada Afrika oo sanadani 14 dal ee ku loolami doonaan ku guuleysigiisa ayaa eegi doona iyo kulamada maanta furitaanka ee jira idoo Algeria ay difaacadayaasha tartanka oo sanadii la soo dhaafay la baajiyay virus corona awgeed aniga Xasan Cabdilaahi ya barnaamijkiisa saraalkan idin kala socodsiinay waan mar kale iyo barnaamijkii muuqaalka ciyaaraha ee Rajis Sports TV intaasi daawadayaal waxa ay qodobada ugu waaweyn barnaamijka muuqaalka ciyaaraha ee Rajis Sports TV qodobadii aad daawateen hadii aan ku bilaabana tababaraha Leicester City Bernard Rodgers ayaa shaaca ka qaaday inta lagu guda jiro bisha January daaqada kala wareegay ciyaartoyda in Leicester City ciyaartoy qad dhexe oo ku soo biiri doono
Leicester City ayaa kulamadii ugu dambeeyay guuldarooyin iyo barbaro soo xariisanayay iyagoo Leicester City haatan ay u dagaalamayaan tartamada Europe boosaska lagu soo aadayo. tababaraha cadaadiska uu saaran yahay ee Leicester City Bernard Rodgers ashaac ka qaadin ciyaaryahan qadka dhexe oo u soo dhaqaaji doona Gida King Power. Bernard Rodgers ayaan sheegina magaca ciyaaryahanka Leicester City la xiriirinayo, laakiin tababaraha ayaa shaac ka qaaday hal xidig oo qadka dhexe oo ku xoojin u baahan yahay inta lagu guda jiro daaqada kala wareegga ciyaartoyda. Barcelona waxay jawaab siiyeen Liverpool iyo Manchester City oo ku aadan ciyaaryahanka dhalinyarada Spain ee Gavi oo si weyn loola xiriirinayo kooxaha Premier League ciyaara. daayarka reer Spain iyo Barcelona Gavi ayaa casaan qaatay kulankii xalay ee Granada la ciyaarayeen waxaana tababaraha leeliya Barcelona ninka reer Spain ee Xavi Hernandez oo shaac ka qaadin ciyaaryahankaasi oo ku jiro qorshaha Barcelona ee sanooyinka soo aadan. Barcelona ayaa u arkaan mid sanadaha soo aadan anfici kara daayarka reer Spain ee Gavi kaas oo kamid xidigaha ka soo aflaxay akademiyada Barcelona ee La Masia. warkan Barcelona ka soo yeeray ayaa dhabarjab waxa ku noqonaya Liverpool iyo Manchester City oo daneynayeen ciyaaryahan Gavi ee ka soo dhaqaajiyaan Barcelona iyo horyaalka dalka Spain ee La Liga. Real Madridna waxay guul dahabi ka gaareen kulan Valencia ay ku soo dhaweeyeen Gida Santiago Bernabeu ee caasimadda Spain ee Madrid. Real Madrid ayaa 4 gool iyo gool waxay ku qaarijiyeen Valencia kulan ka dhacay Santiago Bernabeu. weeryahanka Faransiiska Karim Benzema iyo daayarka Brazil Vinicius Junior ayay kaga mahad celinayaan. Vinicius Junior ayaa kulankii Getafe Veres Corona ku seegay markaa Real Madrid khasaare gool waxba ay kala soo laabteen Getafe. ciyaaryahanka dhalinyarada ee Brazil Vinicius Junior ayaa loo arkaa mid kamid ah xidigaha sanadani ee ku xisaabtamayaan Real Madrid. imaatinka tababara Carlo Ancelotti ayaa loo arkaa inuu bedelay qaab ciyaareedkii Vinicius Junior xilligii tababara Zinedine Zidane oo ka shaqeynay. Vinicius Junior ayaa ciyaartoy fursadaha inta badan khasaariya waagii oo ka shaqeynay tababaraha reer Faransa Zinedine Zidane oo haatan ku darsaday gooldhaliye ciyaaryahanka reer Brazil iyo Real Madrid Vinicius Junior. Real Madrid ayaa la dheereeyeen dhibcaha horyaalka La Liga ay ku hogaaminayaan iyagoo 49 dhibcood haatan fooqa sare kaga jiraan horyaalka dalka Spain ee La Liga. Arsenal waxaa lagu soo waramayaa in lacag iyo ciyaaryahan isku darayaan Fiorentina si weerar Zerbi weeriyaankooda Dazar. tababaraha Arsenal markay Arteta ayaa ka shaqeynayay in weeriyaan oo ku soo daray shaxdiisa iyadoo ciyaaryahanka reer Gabon ee Pierre-Emerick Aubameyang oo ka saaray shaxdiisa bisha January. Arsenal ayaa raadinayay weeryahanka Gabon gabahan iska iibiyaan iyadoo Alexander Lacazette oo galay bilooyinkii ugu dambeeyay qadaraaskiisa faray Emirates. Arsenal ayaa doonaya Lucas Torreira ciyaaryahanka qadka dhexe reer Uruguay inay ku wareejiyaan si toos ah Fiorentina sidoo kalena ee lacag gaaraysa 45 milyan oo lacagta euro ay raaciyaan si ay gacanta ugu soo dhigaan weeryahanka Serbia iyo Fiorentina Dusan oo si weyn loola xiriirinayo. dhinaca kalena legendiga hore Arsenal Ian Wright ayaa kula taliyay Arsenal inay u dhaqaaqaan ciyaaryahanka qadka dhexe Netherlands ku jaawareysan nolosha horyaalka dalka Faransiiska ee liigaga gaar ahaan naadiga Parc des Princes ciyaartay Paris Saint-Germain. Georgina Wijnaldum oo ka dhaqaaqay xilciyaareedkii la soo dhaafay Liverpool ayaa ku dhibaatoonayna shaxda joogtada ka mid noqdo tababaraha reer Argentina ee PSG maamulaha Mauricio Pochettino. ciyaaryahanka hore Arsenal Ian Wright ayaa kula taliyay tababaraha Arsenal markay Arteta inuu u dhaqaaqo Georgina Wijnaldum oo arko mid qadka dhexe Arsenal wax badan ku soo kordhin kara. xaqiiqdii ciyaaryahanka reer Netherlands Liverpool lafdhabar ayuu ka hayay Ian Wright. Liverpool waxay si weyn u tabeenaa bixitaankii Georgina Wijnaldum ayuu yiri iyadoo tababaraha Jurgen Klopp oo farta dhexe oo qaniinaya ayuu yiri Ian Wright. Arsenal haddii ay soo qaataan waxa uu noqon doonaa saxiix weyn ayuu yiri Ian Wright oo kula taliyay hogaamiye Arsenal markay Arteta inay u dhaqaaqaan Georgina Wijnaldum oo haatan ciyaaryahan booska joogtada ka haysan Parc des Princes iyo Paris Saint-Germain. ciyaaryahanka reer Argentina Lionel Messi PSG wuxuu waajib inuu ka dhaqaaqi doono PSG. ciyaaryahankooda Lionel Messi ayaa ku faraxsanay joogitaanka Parc des Princes tan iyo markii jihada Barcelona oo kaga biirana Lionel Messi ayaa helin qaab ciyaareedkiisii sareeyay. xidiga reer Argentina ayaa la xiriirinayaa horyaalka dalka Mareykanka inuu u dhaqaaqayo gaar ahaan Inter Miami. 2 sano heshiisa ayuu qalinka ugu doogay haddii xilciyaareedkan idlaadana hal sano ayaa ka haray heshiiska
Lionel Messi oo la gaaray PSG. waxaase majalada laakiin Faransiiska laga leeyahay ku ramaysaa in Leo oo quldaraynayo in oo kansalo heshiiska halkaasna si oo kaga dhaqaaqo baagdi Faransiis. PSG ciyaaryahankooda Lionel Messi ayaa loo arkaa mid ku fashilmay nolosha horyaalka dalka Faransiiska ee liigaga tan iyo markii La Liga oo muddo Barcelona ka tirsanaa oo ka dhaqaaqay. dhinaca kalena ciyaaryahanka waayilka ee reer Brazil Daniel Alves ayaa xalay kulankiisa ugu horeeyay ciyaaray horyaalka dalka Spain ee La Liga kusoo laabashada Barcelona. ciyaaryahanka reer Brazil Daniel Alves ayaa caawintiisa ugu horeeyay kulankaas sameeyay kadib markii kubadda oo soo karoosay oo madaxa oo la helay Luka de Jong oo weerarkaga ciyaara Barcelona. waxaana ugu dambeysay sanadii 2016 markaas oo ka dhaqaaqay horyaalka dalka Spain ee Liga gaar ahaan Barcelona. dhinaca kalena ciyaaryahanka reer Faranse Ousmane Dembele ay Barcelona waxa ay heleen bedelkiisa. Ousmane Dembele ayaa galay bilooyinkii ugu dambeeyay qadaraaskiisa Camp Nou ee Barcelona iyadoo ciyaaryahanka wili oo ka cagajiiday in qadaraaska u dheereeyo naadiga Camp Nou ku ciyaartay ee Barcelona. majalada El Mundo Deportivo waxay ku waramaysaa in Barcelona hogaamiyada Xavi Hernandez uu doonay inuu u dhaqaaqo Spain ciyaaryahankooda iyo Wolverhampton Wanderers Adama Traore 25 sano jirka reer Spain ayaa ka mid xidigay ka soo aflaxay akademiyada La Masia sanadii 2015 ayuuna ka soo dhaqaaqay Camp Nou isagoo Premier League caga dhigtay tan iyo xilligaasina wuxuu ka ciyaaray horyaalka dalka England ee Premier League. tababara Xavi Hernandez ay u arka bedelka Ousmane Dembele oo diidana qandaraaska uu kordhiyo naadiga Catalanka ee Barcelona in bedelkiisa u dhaqaaqo Adama Traore. dhinaca kalena Roma ayaa soo bandhigeen inay si rasmi ah ee ula socdeen heshiis 6 bilood ciyaaryahanka reer England ee Ashley Milonanis. Roma ayaa maaliyadda lambarka 15aad u dhiibeen Ashley Milonanis oo tababara Jose Mourinho oo doonayo inuu ku xoojiyo qadka dhexe ee Giallorossi kuwaasi u dagaalamay booska koobka Real Europa UEFA Champions League waxa uu soo aadaya xilaareedka soo aadan horyaalka dalka Talyaaniga ee Le Calcio. dhinaca kalena naadiga Dortmund ayaa waxay u sheegeen kooxaha daneynaya ciyaaryahanka reer Norway Erling Haaland oo meelna kaga socon geeda galbeedka magaalada Munich dhacda ee ku ciyaaraan BVB. naadiga Dortmund xidigooda ayaa la xiriirinayaa kooxaha ugu tunkuween qaaradda Yurub Real Madrid, Juventus, Bayern Munich, Manchester United ayaa xiiseynaya ciyaaryahankaasi iyo Chelsea inay u dhaqaaqaan. Signal Iduna Bag naadiga ku ciyaartay Dortmund waxay shaaca ka qaadeen inta lagu guda jiro daaqada kala wareegga ciyaartoyda bisha January in Haaland meelna uusan kaga soconaa horyaalka dalka Germany ee Bundesliga. Everton waxay xiiseynayaan ciyaaryahanka reer Argentine iyo naadiga Inter Milan Alexis Sanchez. tababaraha Everton leeyahay ee Rafa Benitez ayaa doonaya in Alexis Sanchez oo 33 sano jir oo dib ugu soo celiyo horyaalka dalka England ee Premier League. Inter Milan tababarooda Simone Inzaghi ayaa doonaya inuu ogolaado Alexis Sanchez inuu ka baxo Inter Milan. ciyaaryahanka reer Argentine ayaa ka mid ah xidigaha Premier League ugu wanaagsanaa waagiisii Arsenal Gunners oo ka tirsanaa intii uusan qaab ciyaareedita uusan ku soo bandhigin Manchester United marka Inter Milan ay Manchester United ama ay ku siiyeen. dhinaca kalena Barcelona ayaa waxaa lagu waramayaa inay doonayaan inay u dhaqaaqaan ciyaartoy qadka dhexe ka ciyaara kadib markii Filipe Coutinho ka baxay. tababaraha Barcelona leeyahay Xavi Hernandez ayaa shaaca ka qaaday in Barcelona ciyaartoy qad dhexe oo ku soo biiri doona inta daaqada kala wareegga ciyaartoyda lagu jiro. ciyaaryahanka Filipe Coutinho ayaa ogolaadeen Aston Villa qaab amaah inuu ugu dhaqaaqo. waxaan haatan Barcelona ee daneynayaan inay soo helaan ciyaaryahan qadka dhexe. Barcelona ayaa shaaca ka qaadeen magaca ciyaaryahanka ee doonaya bisha January inta lagu guda jiro iyadoo Barcelona la ogson yahay in dhaqaale xumo weyn naadigaasi ay ku absatay taa oo sababtay ciyaaryahankii ugu cansanaayay Lionel Messi inay ogolaadeen PSG oo u dhaqaaqo. madaxweynaha Barcelona Joan Laporta ayaa shaaca ka qaadeen daaqada kala wareegga ciyaartoyda lagu jiro Barcelona xidiga ay ku soo biiri doonaan inkastoo xidigaha Barcelona la xiriirinaya qaarkood Joan Laporta maamulka Barcelona ay ka gaabsadeen in magacyadooda warbaahinta ay xigtaan. koobka qaramada Afrika ee African Cup of Nations ayaa ka furmay maanta dalka Cameroon waana tartankii 33aad ee qaramada Afrika.
Africa Cup of Nations waa mid kamid ah tartamada oo loogu jecel yahay qaaradda Afrika waxaana tartankaani difaacanaya dalka Algeria oo 2019 ka qaaday dalka Senegal ciyaar gool iyo waxba ku idlaatay waxaana tartanka lagu furayaa martigeliyaasha Cameroon oo 7 fiidnimo la ciyaari doona Burkina Faso halka dalka Ethiopia jasiiradda yar ee Kaafirdi ee la ciyaari doonaan ciyaar geeska Afrika la daawanayo caawa 4 saac oo habeenimo inta ayaa saaxiib yaal ku soo gabagabeynaya barnaamijkii muuqaalka ciyaaraha ee Rajis Sports TV anigoo Xasan Cabdullaahi ayaa barnaamijkii soo halkaan idin kala socodsiinay farsamada kaamirada waxay iga saaciday liiba dib inta ku mid doona amaan Allah